Awoodda isbeddelka nafta. Mararka qaar, noloshu waxay gaartaa meel qofku isweydiiyo: ma sidan ayaan weligay ahaan doonaa, mise waan isbeddeli karaa? Su'aashaas yar ayaa noqon karta bilowga isbeddel weyn. Runtu waxay tahay in qof kasta uu leeyahay awood uu ku beddeli karo naftiisa haddii uu qaato go'aan dhab ah oo qalbigiisa ka soo baxa. Isbeddelku ma bilaabmo marka duruufuhu isbeddelaan, balse wuxuu bilaabmaa marka maskaxda iyo qalbigu go'aan qaataan. Dad badan ayaa suga maalinta ay wax walba fududaan doonaan, laakiin dadka guuleysta waxay ogaadaan in maalinta ugu muhiimsan ay tahay maalinta ay naftooda la heshiinayaan oo ay yiraahdaan, maanta ayaan bilaabayaa. Qofka doonaya inuu isbeddelo wuxuu marka hore aqbalaa xaqiiqada: in qaladaad jireen, in waqti lumay, ama in awooddii uu lahaa aan si fiican loo isticmaalin. Laakiin halkii uu ka niyad jabi lahaa, wuxuu fahmaa in qaladku yahay macallin, ee uusan ahayn xukun dhammaad ah. Isbeddelka dhabta ahi ma yimaado hal mar oo weyn, balse wuxuu ku bilaabmaa tallaabooyin yar yar. Halka caado oo wanaagsan oo maalin kasta la sameeyo, hal fikir oo wanaagsan oo maskaxda lagu beero, ama hal go'aan oo sax ah oo la qaato. Tallaabooyinkan yaryar marka ay isbiirsadaan waxay dhisaan nolol cusub. Taariikhdu waxayna tusaysaa in dad badan oo guuleystay aysan ku bilaabin meel sare. Waxay ahaayeen dad caadi ah, balse waxay lahaayeen hal sifo oo muhiim ah: go'aan adag. Go'aankaas ayaa ka dhigay inay ka gudbaan caqabado, ay saxaan khaladaadkooda, oo ay noqdaan dad kuwii hore ka duwan. Diinteena waxayna baraysaa in isbeddelku uu ka bilaabmo naftaada. Alle wuxuu Qur'aanka ku yidhi Subxaanahu wa Tacaala: Ilaahay ma beddelo xaaladda qoom ilaa ay naftooda beddelaan. Taasi waxayna tusaysaa in furaha horumarku aanu dibadda ka iman, balse uu ka bilaabmo gudaha qalbiga qofka. Haddaba, haddii aad maanta dareento inaad rabto nolol ka wanaagsan tii shalay, ha sugin waqti kale. Qaado go'aan, xataa haddii uu yar yahay, sababtoo ah mararka qaar hal go'aan oo yar ayaa noqda bilowga nolol gebi ahaanba cusub. Xasuusnow, isbeddelku ma aha wax dadka kale u gaar ah, adiguna waad awooddaa.